مسكاميلي عافمادك اللي استعماله لما شغال عدون كاستعمالا medical terminology objectives ama xoojidoyinka laga dalinayo barashadiisa maxay tahay apply basic principle of medical building in la barto ereyada caafimaadka ah waxyaabaha ka dhisan yihiin ama ka samaysan yihiin correctly pronounce medical terms sida saxda ah loogu dhawaaqo ereyada caafimaadka define common medical terms in la qeexo medical terms kaas mid walba qeexid gooni ah loo sameeyo related to the common medical terms to the human anatomy and physiology common disease status and diagnosis status iyo sidoo kale waxaan baran doonaa ereyada caafimaad la xiriira anatomy iyo physiology barashada qaab dhismeedka iyo shaqada jirka iyo cudurrada qaybo kamid ah iyo diagnosis ama baaritaanada qaybo kamid ah medical terminology marka maxaa lagu qeexaa medical terminology is special vocabulary used by the healthcare professional for effective and accurate communication medical terminology waxa lagu qeexaa special vocabulary waa ereyo khaas ah isticmaalaan by the healthcare professional shaqaalaha caafimaadka for effective and accurate communication si ay u sameeyaan wada xiriir dhab ah oo fiican because it is based mainly on Greek and Latin word sababtoo waxaa yeelay ereyada caafimaadka dhamaantood waxay ka yimaadaan ereyo Greek iyo ereyo Latin the medical terminology is consistent and uniform throughout the world dhammaan ereyada caafimaadka waxa laga isticmaalaa adduunka oo dhan baa isticmaala medical terminology waxa isticmaalaya shaqaalaha caafimaadka adduunka medical terminology word parties or word element ereyada caafimaadka marka qaybaha ay ka dhisan yihiin the word are formed from root prefix combined vowel and suffix ereyada caafimaadka dhamaantood waxay ka samaysan yihiin afartan waxyaabood root wuxuu yahay ereyga macnaha dhabta ah sameynaya prefix horgale combined vowel ereyga xiriiriyaha and suffix iyo dabagala waxa laga yaabaa elementiska ama buildingka waxyaabaha ka dhisan tahay erey kastoo caafimaad u afarta inay qaybtood saddex qaybood mar yihiin mar ay laba yihiin mar prefix ku maqan yahay mar suffix ku maqan yahay iyo mar uu maqan yahay waxa la yiraahdo root ku maqan yahay laakiin sida caadiga ah jumlad kastoo caafimaad waxay ka dhisan tahay afartaas root prefix combined vowel and suffix waaye maxay marka macnaheedu yihiin root-ka waxa la yiraahdaa ereyga macnaha sameynaya dhabta ah prefix-ku horgale combined vowel-ku waa isku xule badanaa waa xaraf oo la yiraahdo iyo suffix-ka oo dabagalaha word root-ka hadii aan definition ahaan soo qaadana ama qeexidiisa word root waxa lagu qeexaa the fundamental unit of each medical term ama medical word jumlad kasta ama erey kasta oo caafimaad ah ereyga aasaaska ay ka dhisan tahay waxa loo yaqaanaa root baa loo yaqaanaa badanaa waa ereyga macnaha sameeya this establishes the basic meaning of the word waa ereyga macnaha u sameynaya jumlada and is the party to which the modifying prefix suffix and are added waana kan badanaa ay sida dhabta u cadeynayaan oo wax uga sheegayaan prefix ka horgalayaasha and suffix ka dabagalayaasha lagu darayo suffix marka maxaa la yiraahdaa suffix is a short word party or a serious party added to the end of a root to modify its meaning such as it is suffix ka waxa la yiraahdaa erey xagga dambe laga dhigo waa root-ka si uu cadeeyo macnaha dhabta ah root-kan waxa uu yahay for example it is oo kale sajaas waxa kamid ah it is baa kamid ah it is marka waa inflammation waa caabuq badan ama suffix inflammation ka marka caabuqa it is badan waxa la dhahaa la dhigaa at the end of the root-ka xagiisa dambe baa la dhigaa prefix marka waa maxay horgale prefix-ku isaguna waa short word party added before a root to modify its meaning such as berry prefix-ku isaguna sidoo kale waa erey ama jumlad la dhigayo before a root ka hortiisa la dhigaya to modify its meaning si ay macno dhab ugu sameeyso root-ka ay ka hor dhacday sajaas waxa kamid ah berry oo kale ba kamid ah oo arawna waxa wareegsan combined vowel-ka isaguna saan soo sheegnay waa xiriiriye waa qayb saddexaad when a suffix begins with a consonant it is added to the root suffix-ka badana marka uu ku bilowdo baa la yiri consonant haduu ku bilowdo xaraf shiibana ah it is added waxa lagu darayaa to a root lagu darayo use a vowel baa la isticmaalaya marka a vowel usually an o vowel-kuna badana waa xarafka o-ga is inserted between the root and the suffix badana xarafka o-ga waxa la dhex dhigaa sida xeerarku yihiin inuu isku xiro between the root laba root or the root and suffix ama root iyo dabagal isku xidha to aid its pronunciation si uu saxo dhawaaqa jumlada a combined vowel may be added between a root and a suffix badana waxa isku xidhaa baa laba root ama root iyo suffix isku xidhaa badana combined vowel
Why? That's when the suffix logi, meaning the start of, is added to a root neuro, meaning the nerve or nerve system. A combined vowel is added. Badana waxa la yiri suffixka logi la yiraahdo oo dabagalha ay micnihiisu waa start of waxa la baranayo. It is added to root. Waxa lagu daray root baa lagu daray doona insha Allah. Rootka lagu daray doona waa neuro. Neuro meaning macnaheedu waxa weeye waa nerve. Waa dareen, dareemayaal oo nerve system ama dareemayaasha jirka. A combined vowel is added. Combined vowel marka lagu darana aragna marka jumladii marka la isku daro rootkii neuro ahaa iyo suffixkii dabagalihi iyo combined vowel marka la isku daro. Neuro waa root plus combined vowel oo ah plus logi oo suffix equal waxa soo baxaysa neurology. Neurology marka la noqonaysa is study of nerve system oo barashada habdhiska dareen wadka. Erayada tan marka aan soo qaadano hematology aan soo qaadano hematology waxa la yiraahdaa barashada dhiigga la yiraahdaa hematology. Sida aan aragno halka waxa loo kala jabiyay hemat iyo o iyo log. Hemat waa root waa erayga micnaha sameeyay, owdu waxa weeye waa combined vowelki, logigina waa suffixki. Marka erayga hemat oo root micnihiisu waa maxay? Waa blood waa dhiig. Erayga hemat waxa la yiraahdaa blood baa la yiraahdaa. Owgiina waa connectionkii waa connectingkii tii isku xidhaysay oo waxa isku xidhaysaa rootka iyo suffixka. Logigiina waxa weeye barasho waxay tahay start of ayaduna waa suffix waa dabagale. Sida daraadeed hematology maxay noqonaysaa? Hematology is start of blood oo barashada dhiig. Electrocardiogram baan eray labaad soo qaadanayna medical term. Electrocardiogram sida caadiga waxa loo yaqaan ECG waa qalab kombiyuutarka. Waxay ka kooban tahay marka eraygan caafimaadka ay laba root iyo waxay ka kooban tahay suffix. Labada root ee marka ku jira meeshan waxa waa elector iyo cardia. Elector means waa root waa electricity. Owdina waa taa waa CV baa loo soo gaabiyay oo CV waa maxay? Waa combined vowel baa loo soo gaabiyay. CV waa combined vowel. Rootka labaad ku jiraana waxa weeye waa cardia oo waxa weeye isaga waa heart micnihiisu. Combined vowel kala ku jira ma CV kala combined vowel ah oo wuxuu u dhaxeeyaa rootka cardia iyo gramka oo suffixka buu dhaxeeyaa. Gramkuna marka isaga waa suffix oo dabagale waana record. Sida daraadeed electrocardiogram waxa loo yaqaanaa kombiyuutarka saarista wadnaha. Electrocardiogram sida halka noo muuqata waxa ku jira laba root iyo laba combined vowel iyo hal suffix baa ku jira. Labada root ee ku jira waa elector iyo cardia. Suffixka ku jirana waa gram. Labadii combined vowel la midimar waxa isku xidhaa labada root ta kalena waxa isku xidhaa maxay? Rootka iyo waxa weeye suffixka dabagala isku xidhaa. Note: a combined vowel usually is not used if the ending begins with a vowel. Combined vowelka badanaa lama isticmaalayo haddii suffixku ka bilowdo xaraf vowel oo shaqo lama isticmaalayo sababtoo laba shaqo isma xili karaan. The root neuro is combined with a suffix itis, meaning inflammation of. Haddii baa rootkii neuro ahaa lagu daro suffixka dabagalaha ahaa ee itis inflammationka haddii lagu daro waxay noqonaysaa inflammation of waa caabuq bay keenaysaa. For example, neuro plus itis. Neuro root waxa lagu daray suffix dabagala itis ah waxay noqonaysaa neuritis. Neuritis marka waxa waa inflammation of the nerve waa neerfayaashii oo caabuqa. There are some exceptions of this rule, particularly when pronunciation or meaning is affected. Badana waxa jira xeerarkan aan sheegayno kuwa iyo ka baxsan sabab la xiriira xagga dhawaaqa marka loo xiriyo iyadoo arki doona insha Allah. A combined vowel is an important connector between the root. Combined vowelka waxa la yiraahdaa waa qayb muhiim ah. Qaybtaas oo isku xidha waxa waa rootska isku xidha laba root. To aid in a pronunciation si mar walba u keento dhawaaq sax ah oo labada root u kala jarto. And the comis sidoo kale to linki waxa isku xidha to root to suffix. Waxa kale isku xidha erayga micnaha sameeyo rootka iyo suffixka dabagalana waa isku xidha. Or the other root am root kale root ku xidha laba root bay isku xidhaysaa. A combined vowel is usually the letter O. Combined vowel ku badanaa xarafka O-ga la yiraahdo way oo isku xidhaya laba root ama root iyo suffix isku xidhaya. Which has no meaning of its own. Iyadoo wax micno ma leh. Micno gooni ah sameynayso ma leh laakiin waa letter ama xaraf connector oo isku xidha wax. It is not used if the ending suffix begins with a vowel as in neuritis. Haddii baa lama isticmaalayo combined vowel ka haddii suffixku uu ka bilowdo xaraf vowel ah sida itis oo kale
lama isticmaalayo command vowelkii oo sida u jeedo hadda narratives wax inoo kama muuqato command vowel sababta command vowel loogu soo dari waayo narratives waa maxay suffixkii baa wuxuu ka bilowday ay buu ka bilowday oo wuxuu yahay xaraf vowel sida daradeed lama isticmaalin command vowel waaye command form marka waxa la command form waxa la yiraahdaa marka ay isku tagaan ama la isku xiro hal root iyo command vowel hal root iyo command vowel oo marka isu tagaan iyo root waxa loo yaqaan command form. Command form is the combination of the word root with the command vowel. Command form waxa la yiraahdaa is a combination isku darka ama isu taga of a word rootka with the combined with a vowel markii vowel lagu daro. Example sarahan cardia iyo o cardia marka waa maxay cardia waa root ooduna waa maxay waa vowel sida daradeed cardio haday noqdaan israacaan waxay noqonayaan command form laakiin cardia markay tahay cardia waa root ooduna goonideeda markay u taagan tahay waxa way command vowel laakiin hadii la isku daro oo cardio la yiraahdo waxay noqonaysaa command form. Cardio is a command form consists of cardio with means heart and the command vowel o. Cardio is a command form waa isku dar consists of kaas oo ka kooban of a cardio erey cardio ka kooban yahay with its means kaas oo macnihiisu yahay heart wadna and the command vowel oo lagu daray command vowel sida marka halka waxa ku aragtaa command form waxa la yiraahdaa markay isu tagaan rootka iyo command vowel. Example of command form ka marka maxaa tusaale ah waa rootkii baa la soo qaatay iyo vowelkii. Okay, gaster waa root oo lagu daray waxa noqonayaan gastro. Command form wuxuu noqonayaa gastro marka macnaheedu waa maxay waa stomach waa caloosha weey waa rootka hebat baa la soo qaatay vowelka oo la soo qaatay isku noqonaya marka la isku akhriyo hebato meaning macnaheedu waa maxay waa liver oo beerka waa rootka immune baa la soo qaatay waxa lagu daray vowelka oo immune ama immuno means waa immune safe ama immune system waa difaaca jirka. Osteo baa la soo qaatay osteo ruuda waxa lagu daray oo vowel waxa noqonayaan osteo meaning macnaheedu waa maxay command vowelka osteo meaning macnaheedu waxa weeye waa bone waa lafta weey waa maxay waa laf weey laf. Okay, command formka wali noo sii socda. Command formada waxa kamid ah gyneco meaning macnaheedu waxa waa woman haweenka female ama dumarka waxa loo yaqaan gyneco. Medical terms kaas marka maxaa badan loo soo gaabin karaa gynecology waxa loo soo gaabin karaa gynecology marka loo soo gaabiyo marka waxa lagu soo daray suffix baa lagu soo daray markanology ah maxay noqonaysaa marka gynecology is the study of the woman waa barashada haweenka. Hemo iyo command form waxay ka kooban tahay root iyo vowel bay ka kooban tahay marka hemo macnaheedu waa maxay meaning waa blood dhiig weey blood dhiigi marka waa maxay waxa la sii taariifinayaa globin baa lagu daray hemoglobin maxaa lagu daray globin oo suffix lagu daray marka hemoglobin macnaheedu waa maxay waa protein in the blood cells unugyada dhiiga as proteinka ay leeyihiin maadada birta ah ee hemoglobinta la ku jirta weey. Hemato iyaduna waa blood sidoo kale meaningkeedu macnaheedu waxa la sii taariifiyay loo jibal raacsiiyay oo suffix hematology noqotay. Hematology marka maxay noqonaysaa hematology is the study of the blood barashada dhiig. Hebato waa command form oo maxay command form ku noqotay waa root iyo command vowel isku daray. Hebato macnaheedu waa liver waa beerka liverka waa beerkii baa la sii taariifiyay waxa lagu daray suffix itis lagu daray maxay maqlan noqonaysaa hepatitis marka waa maxay waa inflammation of the hebat ama inflammation of liver waa beerka oo caabuqa. Labro waa command form labro meaning macnaheedu waxa waa abdomen oo ku jirta weey waxa la raacay suffix baa lagu daray oo waxa noqotay laparotomy waa incision of the abdominal wall gidaarada caloosha qofka laga qalo laga saaro waxa loo yaqaan laparotomy. Leuko sa aragna iyaduna waa command form oo isku dar ka kooban maxay root iyo command vowel waa command form marka command formka loo yaqaan leuko means macnihiisu waxa white wax cad weey. Leuko waxa lagu daray suffix oo dabagal site baa lagu daray waxa noqonaysaa leukocyte waxa la yiraahdaa
white blood cells unugyada dhiigga cad waxa loo yaqaanaa leukocytes. Nephro waa common form. Nephro waxa loo yaqaanaa kidneys, kaliyaha loo yaqaanaa ma kidney. marka waxa weeye common laga dhigo medical terms laga dhigo waxa noqonaysaa nephrectomy. Nephrectomy waa maxay? Waa removal of kidney, waa qofka oo kaliyaha ama labada kaliya ama kaliya kamid laga saaro, nephrectomy. Neuro waa maxay? Neuro waa common form, meaningkeedu waa nerves, waa dareemayaashii. Medical terms kan neurology la soo qaatay. Neurology waa study of the nerve system. Onco baa la soo qaatay. Onco means tumor. Onco waxa weeye onco waa common form, waxay ka timi root iyo combine vowel la isku daray. Macnaheedu waa maxay? Waa tumor. waxa weeye waa ruqur meel ka soo baxda ama qofka ay ka soo baxdo buro, ay ka soo baxdo buro. Hadii medical terms laga dhigo waa oncologist. Oncologist waxa waa specialist in tumor. Dhakhaatiirta dadka burooyinka qaala waxa loo yaqaanaa oncologist. Oncologist waa specialist in tumor. Ophthalmo means eye, macnaheedu waxa weeye indhaha. Ophthalmoscope waxa la yiraahdaa waa instrument, waa qalab to examine kaasoo lagu baaro the eyes, indhaha. qalabka indhaha lagu baaro dhakhaatiirta indhaha isticmaalaan waxa loo yaqaanaa ophthalmoscope baa la yiraahdaa. Osteo iyaduna waa common form, macnaheedu waa bone, waa laf. Hadii waxa weeye gadaal lagaga daro suffix dabagala ah waxay noqonaysaa osteoarthritis. Osteoarthritis waa maxay? Waa inflammation of joints and bone, waa caabuq ku dhaca maxay lafaha iyo kala goysyada. Halkan sawirkan waxa inoo ka muuqda hyperthyroidism. waxa la yiraahdaa hyperthyroidism. Hyper waa maxay? Waa higher than the normal, wax normalka loogu talagalay ka sareeya waxa loo adeegsada hyper. Hyper waa maxay? Waa higher than normal, normalka loogu talagalay wax dhaafa weey. Thyroid waxa waa thyroid gland, qanjirka thyroid gland ka la yiraahdo ama qanjirka balanbaalista cunaha ku yaala. ISM ama ISM oo ism yiraahdo iyaduna waa condition of. sida daraadeed hyperthyroidism wax loo baahan normal thyroid. marka hyperthyroidism haday noqoto dheecaanada uu soo deynayay wax xad dhaaf sameeynaya normalka loogu talagalay bay dhaafayaan. sida daraadeed hyperthyroidism waa maxay? waa higher than normal, marka waa abnormal, waa xaalad khatar aan loo baahnayn. Additional examples aan soo qaadanay waxa weeye laba example. Anemia baan rabnaa inaan kala jebino qaybihii jumlada iyo cardia. Anemia haddaan soo qaadano, anemia prefix bay leedahay. Prefix-ka ama horgalaha ay leedahay waa an way, laakiin wax root ma leh, waa no root. Suffix bay leedahay wuxuu yahay waa emia. Emia waa maxay? Macnaheedu waa condition of blood, waa xaalad dhiig la xiriirta. Sida anemia waa maxay? Waa low blood, waa dhiig oo yaraada way, waa low blood cells, unugyada dhiigga oo ka yaraada normalka loogu talagalay. Cardia haddii aan soo qaadano, cardia isaguna prefix ma leh, laakiin wuxuu leeyahay root. Rootka uu leeyahay waa maxay? waa cardia, oo macnaheedu heart, wadne. Suffixna waa leeyahay wuxuu yahay iya. Cardia iya oo macnaheedu waa state or condition of, waa xaalad iyaduna, waa xaalad la xiriirta maxay? normalka loogu talagalay waxa ay dhaafsiisan. aad baa mahadsantihiin casharkeena dhageysiga aad dhageysteen. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.